tobanka bisha Abriil ee sanadkan ayaa la filayaa in la qabto tartanka kubadda koleyga qaybta gabdhaha iyo qaybta wiilasha ee 17 degmo gobolka Banaadir. waxaa maanta si rasmi ah aqalka dawladda oo xamar loogu qabtay isku aadka kooxaha iyadoo uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso iyo madaxda kala duwan ee sportska. sidoo kale waxaa tababar loo soo xiray 51 macallimiin oo kubadda koleyga kuwaas oo kala socday degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir Xasan Aadan Yabro Wish ayaa faahfaahin ka bixiyay qorituurka maanta la sameeyay. waxa maanta meeshaan u taaganahay waa qorituurkii tartanka kubadda koleyga wiilal iyo gabdho ee degmooyinka gobolka Banaadir oo sanad walba la qabto. sanadkan waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono sanadka ugu fiican ee tartankaas si rasmi ah inuu ugu furmo garoonka Stadium Wish. waxaa kaloo rabnaa inaan meeshaan kusoo gabagabeeno munaasabad ah tartankii amba tababarkii macallimiinta degmooyinka gobolka Banaadir ee kubadda koleyga wiilal iyo gabdho. gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani waxa uu sheegay in 8 kooxood ay u soo gudubta tartanka kubadda koleyga degmooyinka gobolka Banaadir ay ka mid noqon doonaan kooxaha heerka koobaad ee kubadda koleyga. tartankan degmooyinka qayb gala 8 degmo ee isugu soo harta waxaan u aqoonsan doonaa xiriir ahaan in ay ka noqdaan kooxaha heerka koowaad ee dalka ka jira. waa 8 kooxood oo u soo gudubta wareegga kala dambaysa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso ayaa sheegay in maamulkiisa uu xoog saaraya dhiirigelinta dhalinyarada iyo sportska. sportigu waa runtii laf dhabarka bulsho aan lahayn dhalinyaro ciyaartooy ah runtii bulshadaas bulsho horumar gaarta ma aha. markaad fiirisaan gobolada dalka xitaa bersamaadkii gobolada ugu isdhexgalka badan ugu muxuu ahaa dhalinyaradoodii ee horumarkeeda amni ka qayb qaadanaya waxay ahaan jireen meelaha sportigana aada ugu xoogan. marka waa wax isku xiran aan kala maarmin. dhalinyarada gobolkaana annaga waxaan rabnaa in sida uu gudoomiye Wish sheegay aan siino fursad ay kula tartamaan caasimadaha adduunka. waxaa farxad ah in tartankii caasimadaha bariga iyo bartamaha Afrikana kaalin saddexaad ee caasimadda Muqdisho ka gashay taasoo guushaas wax soo hoyana waa dhalinyaradiina oo runtii aan aad ugu amaanayno adkaysiga iyo duruufaha aad runtii muxuu ahaa aad ku soo halganteena waa mid ummadda Soomaaliyeed meel walba idiin ogtahay idiina ka warqabto. Nuur Saciid Taaliil telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.